waxaa askari walba oo ciidamada qalabka sida aad maqasheen loo kordhiyay $70 taasoo qoondadiisa ka dhigaysa $100 oo mushaar ah 30 raashin iyo 70 loo kordhiyay 200 iyo 30 raashinka loogu sameeyo xarooyinka ay degan waa $100 aad u yar nama anfacdo waa ka baahi badannahay meel kale ka doono oo baahidaad aad ka heshay shaqada isaga tag anigu ma qaban karo ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushaar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushaar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan ma lagu qancay shalay haddii dadka saas loo sheegi jiray maanta waa laga yimiday isbaara jidka askari hadduu dhigto sarkaalow aday ku taallaa ogow askari maxkamadda militariga inta baxda askariga soo qabatay xukunta waa dhammaatay sarkaalka askarigaas u taliyaa la xukuma askarigana waa la xukumaa sarkaalka u taliyana waa la xukuma ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn ah arrintaas sheegaya waxaa caddaynaya guddoomiye jawaari iyo dawladdu waa isqabtay in baarlamaanka la koontaroolo darteeda jawaari loo rido saas ma ogtayn mise uma ogidin haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan 30 sano waxaa batay siyaasiyiin siyaasiyiintii xanaaqsaneen dhaqankii ay haleeyeen waxay xalaaleeyeen beentii siyaasiyiinta xanaaqsan waxay ka shaqeeyaan waa run mustaqbalka Soomaaliya danka ma laha waxaa u daran dantooda shakhsiga yaa u daran waxay ka hadlaan negative wax xun ayay ka hadlaan wax dadka qalbi jabinaya ka hadlaan haddii madaxweyne farmaajo oo madaxnimada jecel yahay xasuuq waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeedadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa layga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada samaynayna talooyin badan waxay soo gaarayaan war waxaan dib isaga reexa baashaan hore u soco waxaan dhahay maya ma samaynayo laakiin shayga qariibka waxa waaye ruux Mareykan ka yimid Yurub oo leh 30 sano soo joogo inuu maalin walba sharciga garab maro waxay ka hadlaan dalkan waa burbur ma soo noqonayo waxay ka hadlaan beesha caalamka noo timaado oo hana dhexdhexaadiso waxay ka hadlaan waa laga adkaaday ciidamadeena tabar ma laha hadalkaasi waa hadal calaacal siyaasi xanaaqsan wuxuu gaarsiiyey dadka qalbi jabka iyo niyad jabka uu ku riday wuxuu gaarsiiyey dadkii inay isdhiibaan siyaasiga xanaaqsan shacabka hanaga qalbi jabinin siyaasiga xanaaqsanow rajada ummadda ha ka qaadinina Soomaali waa la yaqaanaa waa dad adag hannaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka ka mid ah in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dawladda waxa laga rabo inay ka shaqayso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dawladnimadana ay hogaamiso inta annagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa
sharaftaan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maanta baryaadiyo amaahda isaajidnaay alla magane taajoonaaye شغال أردي الله إله هلا أبو محتا ولا حرمسا شغال أردي